geela waa midka ay ugu jecel yihiin Soomaalida xoolaha waayihii dambena waxaa soo kordhaya dadka maal gashanaya xilli hore oo waabari ayaan booqday golo geel oo ku yaala duleedka magaalada Cadaado waqtigaas oo geeleydu isku diyaarinayeen bilaabitaanka howlmaalmeedkooda waqtiga roobka oo dhulku yahay barwaaqada geel jiraha ma dareema dhib badan hase ahaatee waxa uu si farxad leh u raacaa geeliisa isaga oo aan ka walwalsanayn inuu shubo isla markaana uu daaq la raadsho ubadka geela subaxa horeeta lagama soo saaro xirada ilaa laga lisa geela hase ahaatee marka la lisa geela ayaa waxaa laga soo saaraa nirgaha iyo qurbacaba xirada si ay caano u helaan isla markaana ay geela intiisa kaleeta u raacaan geel jiraha magacyo gooni ayuu u kala leeyahay geela midba qiimo gooni ayuu ugu fadhiyaa hase ahaatee waxa ugu muhiimsan oorka geela gaar ahaan qoorka astaamaha lagu garto qoorka waxaa ka mid ah inuu doobiyo isla markaana uu dhibi dhisto isagoo sidoo kale ka muuqaal weyn oorta inteeda kale in la liso geela ma aha mid sahlan waayo waxaan isku dayay inaan liso hase ahaatee waxaa ii suurageli weysay inaan liso inkastoo geel jiruhu uu yahay mid si fudud u lisa geela xeerka geeleyda waa in qof kasta oo golaha yimaado aan laga iibin caanaha isla markaana loo diidin hase ahaatee la siiyo caano uu ka dhargo xilliga la lisaya geela nolosha geeleyda waa mid wanaagsan xilliyada roobka isla markaana ay degan yihiin dhul nabadeed Soomaalida ayaa ah mid aad u qadarisa geela iyadoona qofka leh boqolka geela uu ka tilmaaman yahay deegaanka uu xilligaasi degan yahay